wasiirka xiriirka golayaasha Somaliland Cabdi Xasan Buuni ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada hadda shirka jaraa'id kadib ayaa aan waraystay wasiir war-saxaafadeedkaagan shirka jaraa'id aad ku soo bandhigtay qodobada aad ku tilmaamtay bal noo faahfaahay waxaad u qabatay murtidu waxa weeye Axmed Saciid Cige shay shirkii dhacay waxaan halkan ka cadeynayaa inuu sharci darri ahaa sababuhuna waxa weeyaan maadaama ninkii ugu da'da weynaa sharciyan uu gudoominayay shirka isagiina u xidhay una mudeeyay ma ay sharci darri iyo ahayd inay mudanayaasha labada xisbi ee mucaaridka ah hay ku hadhaan madasha waxa intaasi ka sii daran labadii gudoomiye xisbi أحمد محمد محمود سيرانيو على فيصل علي ورابه iyo xubnihii kale ka casuunay la socday ayaa iyaguna madasha ku haray iyagaanay ahayd inay ku hadhaan mar haddii shir gudoon baarlamaanku dooranayo inay ku hadhaan ay halka fadhiyaana iyaduna sharcigu ma banaynayo marka dadkii kale oo dhan iyo xisbigii udub iyo dawladii kullu qodobadii madaxweynuhu dhameeyay laga baxay ayaguna inay raacaan bay ahayd halkiiba iyaguna ku hadheen taayina waxay ahayd mid sharciga khilaafsan laakiin in Cabdi taada ka soo dhax galo warunta labada gudoomiye iyo xubno kale oo ka tirsan saddexda xisbiba way ku jireen maca udub way jireen xubno aan baarlamaanka ku jirin oo joogay meesha laakiin may fadhiin halka golaha wakiilada waxay fadhiyeen halka dadka dhageysanaya been sharcigu waa golay inay dhageystaan Axmed Saciid Cige sidaan ku ognahay ee cadaanka wixii celiyay mudanayaasha ee habixinayay amarka siiyay ee meesha maamulayay ee ku taliyay in si sharci darri ah loo doorto shir gudoon ayaga ay ahaayeen marka madashii sharci dejinta waxay u rogeen xarumihii axsaabtooda oo kale u rogeen maxaad ku cadeynaysaa taasi waanu joogno maanu arag iyagoo hadlaayay iyagoo halkoodii bay fadhiyeen Axmed Saciid Cige dad baa naga fadhiyay annaga qudhadeedu meesha kama annaan maqnayn inay mudanayaasha qaarkood baa soo jeediyay war waxaan sax maaha nabaday dhaawacaysa inaga ina kala fogeynaysa wax wanaagsan ma ahina inaga daaya afka lagaga booday wixii amarka bixinay ee qasbayna waxa labada gudoomiye iyo gudiyaashi la socday imaka adigu waxa tahay xiriirka golayaasha oo iyo xukuumadii oo golayaasha adiga de ka mas'uula sida hadeer baad noo sheegaysay hadda markaa ma xukuumadda baad hadlaysaa adigu waxaan u hadlayaa aniga shaqadaydii ahayd xiriirinta saddexda gole wixii ka xun anigoo dhexdhexaada inaan sheego hadda laakiin dhexdhexaad ma muuqatid waxa difaacaysa dhinacii xukuumadda iyo dhinacii udub sharcigan difaacaya Axmed Saciid Cige sharcigu wuxuu dhigayaa haddii sharci dejintu wax dooranayaan iyaga iyo shir gudoonkooda kaliya ayaa dooran kara iyo dadka markaas dadweynaha haday u furan yahay fadhigaasi iyo saxafiyiinta iyaguna inay yimaadaan hadii loo ogol yahay weey in war-saxaafadeedkaagan kumaad soo qaadin ciidamadii galay meesha ee qoryaha la soo baxay xataa amarada qaarkood lagu bixinayay toogta laakiin ay ciidamadu aanay yeelin sidaasi waanu goobjoog u ahayn taa maxaad uga hadli weyday anigu waxaan ogahay meesha waan joogay horeysi iyo dambayse kama bixin ciidamadu nabadgelyada ilaalinayeen oo kuwii marka horeba loogu talagalay inay nabadgelyada ilaaliyaan intaanu madaxweynuhu iman meesha yimid bay ahaayeen wax la waxay sameeyeen iyo waxay qabteen iyo wax ma jirin haddii ciidamada amar la siiyo oo la yiraaho waxa qabtana ciidan askari diidi kara ma jiro waxa amar sax ah toogta ta iyada wax ninku talinaya ma jiro oo mas'uul dawladda hadalkeeda badaa markii arrinkani dhacay waa laga tashaday waxa la yiri maxaa laga yeelaa nimankii sidaas ay leeyihiin ha u dhawaanina waxay doonaan ha dhameystaan iyagu haday sidaa yeeleen sharciga la tiigsanayna yaan loo dhawaanin baa la yiri talaabo ma ka qaadaysan dadkii khaladka sameeyay masalan ciidamada ama cidii amraysay wariyaashi kamaradii ka jajabiyay ee qaarkood dhaawacay hatta wariyaashi faraha ula tagay taasi waxaan u mareynayaa horena waxa uga jawaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha u maleyn maayo nabadgelyada suga mooyaane ciidamadu inay geysteen wax dhibaato haddayse geysteen ninkii sharciga jabiya ee geysta waxbaa laga qabanaya
cabdi waxaad tahay wasiirkii golayaasha muddana waad ku hawlanayd xataa adiga ku sheegay war-saxaafadeedka inaad isu soo dhaweyso mudanayaasha xisbi kastaba ha ka ahaadeen oo aad tiraan wasiir baan ahay hadda maxaad arrintan dhacday tallaabay qaaday tallaabadaanu qaadnay aniguna ka mid ahay waxa weeye in horta madaxweynuhu wuxuu u yeedhay saaka shirguddoonka goortida oo ah hay-adda keliya qaabilsan nabadgelyada iyo dhexdhexaadinta iyo isku soo celinta wixii la mida taasi waxaan la wadaagaa xukuumadda oo imikadan ayaa laga wada hadlayay anigu xalay oo leyl waan wareegayay wax alla wixii ku habboon sidii la isugu soo dhaweynayay oo ninkii qaldamayna qaladkiisii loo tusayo layskuna soo celinaya dadka wax kale tegay horta ma jiro wax kaloo dhibaatina ma jiraan xisbiga udubna shalay wax alla wuxuu geystay amaahu ka farageliyay ma jirin labada xisbiye kale weeye waxaanu ku eedaynaynaa shalay toole iyadoo hadogeydeen sidii shirku ku bilaabmay jawigii wanaagsana ee qurux badnaa iyo nabadii iyo wanaaggii aanu ku wada joognay nimanka aanu dee waxooga canaanayna iminkana walaalayaal waxaasi ma toosna maxaad tihiin hogaamiyeyaashii labada xisbi waxaad tihiin nimankii u tartamayay mustaqbalka dee odayguna inuu nabadda iyo wixii midnimada dhaawacay oo dhan inuu ka fogaado weeye intaasaan isku waaninayna ma la xidhiidhay markaa ma la xidhiidhay adiga xal oo dhan wareegayay waa hadday commission tahay iyo hadday qaar iyaga ka mid tahay kullidu waan la xidhiidhay xisbiyadii khusayso aad canaananayso guddoomiyaasha ma la xidhiidhay may guddoomiyaashooda xal ismaana arag laakiin waxaan ku tala jiraa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ula xidhiidho kulligood